magacayga waa Calaasey Maxamuud Cadow Maxamed. Waxaan kariyaa shaahi iyo qaxwo. Waxaan ku kariyaa jiiro wacbuudhan. Hooyo Calaasey Maxamuud Cadow waa 75 sano jir, muddo 30 sano ah ka ganacsanaysa iibinta shaaha oo ay ku maareyso nolosha qoyskeeda. Hooyo Calaasey oo macaamiil badan ku leh degmada Kaaraan waxa ay si maalinle ah u iibisaa shaaha, burka iyo sambuuska waxa ayna ku dabartaa nolosha carruur ay ayeeyo u tahay. Hooyo Calaasey waxa ay tusaale u tahay dad badan oo haysta ganacsiyada noocan ah oo aan helin wax dhiirigelin ah si ganacsigooda ay u kobciyaan, balse u baahan in loo muujiyo garab istaag weyn. Gal ganacsi oo u taagan dhiirigelinta ganacsiga iyo horumarka dhaqaale ee Soomaaliya ayaa u kuurgalay shaqada Hooyo Calaasey waxaanu ku booqanay goobteeda xilli ay ku jirtay howl maalmeedkeeda caadiga ah. Sheeko iyo isxog wareysi dheer kadib, shirkadda Band Manufacturing iyo shirkadda Gal Ganacsi oo iskaashanaya ayaa dhiirigelin u sameeyay Hooyo Calaasey Maxamuud Cadow. Waxaan ku wareejinay burjiko ay ugu deeqday shirkadda Band Manufacturing Kakawa si aan ugu dhiirigelino shaqada adag ay hayso Hooyo Calaasey. Mudan Allah, mudan Rasuul, muraadkiina, muraad Muslim, Allah sahlo, ajri xasanaad Allah idin siiyo. Waqtiina khayr, gadaashiina khayr waa idin duceeyay. Waa kaas. Shirkadda Band Manufacturing oo ah shirkad soo saarta burjikada ama girgiraha loo yaqaano Kakawa oo ay si weyn u adeegsadaan bulshada Soomaaliyeed ayaa qayb ka qaata dhiirigelinta dadka haysta ganacsiyada yaryar. Sidoo kalena burjikada Kakawa waxaa laga keenaa dalka Kenya. Ganacsatada Soomaaliyeed ee keenta dalkana waxa ay shacabka siiyaan 1 sano oo damaanad ah maadaama ay tahay nooc burjiko oo ku cusub dalka. Burjikadan Kakawa ayaa leh faa'iidooyin badan sida ay kuugu beeqaaminayso dhuxusha si fududna aad wax ugu karsan karto, waana sida ay noo sheegeen ganacsatada iyo shacabka isticmaalay. Dalka ayaa waxaa ku soo badanaya noocyo kala duwan oo ganacsi ah. Dadka haysta ganacsiyada yaryar ayaa ah kuwa ugu badan ee wajaha dhibaatooyin dhaqaale, mana helaan inta badan maalgelin dhammaystiran si ay ganacsigooda kor ugu qaadaan.